warar kala duwan oo soo baxaya ayaa tibaaxaya in dhexdhexaadin aan caga badan ku taagnayn laga dhex bilaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tan iyo toddobaadkii hore oo sii xoogaystay khilaafka soo kala dhexgalay labada xafiis. dood ayaa ka taagan waxa uu salka ku hayo khilaafka sharci ahaan iyo siyaasad ahaanba, balse xiisadda ayaa gaartay heer labada xafiis ee dalka ugu sareysay ay is-eedeeyaan go'aano isburinayna uu kasoo kala baxo. waxaana bilowgii arrintan ay ka dhalatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo warbixintii NISE ka soo baxday 2 bishan Sebteembar lagu sheegay in Ikraan oo ka tirsanay sirdoonka Soomaaliya ay dileen Al-Shabaab. tuhun ayaana ka dhashay warbixinta NISE. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo soo farageliyay ayaa xilkii ka qaaday taliyihii nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. xeer ilaalinta ciidamada qalabka sidana waxaa loo diray baaris dhammaystiran inay sameeyaan. khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka soo gudbay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, waxaana uu saameeyay hay'adaha dowladda. go'aano isburinaya ayaa soo baxay. Xasan Xundubey oo wasiirkii hore ee amniga ahaa iyo taliyihii NISE Fahad Yaasiin ayaa xilkoodii waayay, waxaana sii xogeystay jahwareerka siyaasadeed ee xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. warar soo baxaya ayaa hadda waxa ay tilmaamayaan inay socdaan dadaallo xal loogu raadinayo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo Khamiistii Muqdisho soo gaaray ayaa wararku waxay tilmaamayaan inay bilaabeen kulamo gaar ah oo ay la qaadanayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. wararka qaar ayaa sheegaya in la qorsheeyay kulan foolka fool ah oo la isugu keenayo Farmaajo iyo Roble oo khilaafkoodu gaaray fiktii ugu sareysay. su'aalo badan ayaa ku gadaaman wada hadalka labada xafiis. maxaa laga wada hadlayaa kiiska Ikraan Tahliil oo ay hadda gacanta ku hayaan hay'adaha garsoorka dalka? ma yahay mid wada hadal lagu dhameyn karo? mas'uuliyiintii xilka laga qaadasa maxaa laga yeelayaa? madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweyne Laftagareen ayaa dadaal gelinaya in khilaafka labada dhinac uusan sii xoogaysan, saameynna uusan ku yeelan doorashada. balse haddii labada xafiis midna uu tanasulin, khubaradu waxay aaminsan yihiin in xiisadan siyaasadeed ay kasii dari karto. Salebaan Xaaji Xamdiraagi, Soomaali Cable, Muqdisho.